بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا الهانتي بمال كستون نقدا ونيسان halkani waa Naba TV xafiiskiisa Pacific gaar magaalada Melbourne ee dalka Australia ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu ku eegi doono dhibaatooyinka shilalka ee ka dhaca wadooyinka dawlad deegaanka Soomaalida ka hirgalay 7 sano ugu dambeysay shilalka wadooyinka ka dhaca ayaa dib u soo badanaya sanadihii ugu dambeeyayna waxa ku dhintay tiro dad ah haddaba barnaamijka gudihiisa ayaanu ku lafaguri doonaa waxaana barnaamijka marti igu ah Cabditaajir Maxamed oo ku magac dheer xiiray kana mid ah ganacsatada dalka Australia ee Soomaaliyeed ee deegaanka Soomaalida ka soo jeeda muddo dheer ka maqnaa wadanka laakiin ku noqday 2018 Cabditaajir ayaa inooga warbixin doona dhibaatooyinka ka dhaca wadista baabuurta ee wadooyinka dawlad deegaanka Soomaalida baabuurtaas qaabka loo wado iyo shilalkaasi habka ay u dhacaan isla markaana talooyin u soo gudbin doona xukuumadda iyo shacabka Cabditaajir ku soo dhawow xafiiska Naba TV ee magaalada Melbourne adigoo aad u mahadsan iyo barnaamijkaba Cabdiraxmaan aad iyo aad baad mahadsan tahay marka labaad waxaan iga mahadcelinayaa martiqaadka ay fiiseen Naba TV xafiiskina ugu martiqaadeen aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin boqolkiiba boqol muddo waa dhaxeereed waxaan aaday wadankii ana muddo badan ka maqnaa waxaan tagay wadankii oo sidii xilligii laga soo deenayo TV-yada iyo sidoo hadda ahaa wax badan farq u dhaxeeyo aynu soo balonimaadna xilli ma ayaa u dhaxaysay markaad wadanka kuugu dambeysay iyo markaad ku noqotay tira qiyaasaan inta u dhaxaysay 25 sano maadan arag haddaba markaad tagtay deegaanka Soomaalida isbedelka dhinaca magaaleynta iyo miyigii iyo dhaqankii iyo bulshadii iyo dareenkii waxyaabaha ugu waaweyn inagoo barnaamijka dhinaca wadooyinka iyo dhibaatooyinka gaarka barnaamijku aragtay u tagi doono maxay ka mid ah waxyaabaha sida gaarka ah aad u aragtay isbedel ama waxa sidiisii wali aad ku garatay inuu sidiisii 25 sano kadib yahay iyo waxyaabaha isbedelay horta wadanka xilligii ugu dambeysay iyo waqtiga aan tagay farq weyn baa u dhaxeeyay mar waa mid magaalada Jijjiga la dhaho gobolka Faafan uu fiday xoogaa magaalada way fiday magaalada way dhismatay inkastoo qabyo badan ku jirto oo aad guri badan oo qabyo ay ka muuqdeen oo hadda la dhisay haddana maartu uu fiday waxaalaha ugu daran oo magaalada Faafan ugu dhib badan waa xagga jidadka oo magaalada gudaheeda ah oo aan maartay sheegay shuraantii aad loo controlin bajaajka iyo istaraatiijiga wadanka magaalada ka shaqeeya oo aan la controlin limit lahayn dadweynihii iyo asagii maartay aan la leeyahay karin intaas baa sanadkiiba ku tarmaqata laakiin si aan qof walba bajaaj intuu soo qato maartay wadada la soo saarayo speedkii oo magaalada dhexdeeda laga yaabo markuu madaxtooyada ka soo baxo gaariga speed ku socda inuu maartay ilaa taalada sayidka soo xalaalahay inuu speed ku socdo dadkina marayaan bajaajki marayaan aan dadkii gaariyaasha la leeyahay limit gooniya ha ku socdaan xawaaraha la dhimo gaariga intaas 40 ku socdo 60 ku socdo 20 ku socdo maadaama magaalada dhex marayo iskuul baa socdo dad yar baa socdo dad indhoolo marayo meeshii reeran oo kala hagay dadkii male xawaar ku socda maalinta waxa ka sabab bajaajadii oo dadkii jiilaya oo maartay iska jiilaya bajaajadii oo maartay sameynta traffic badan gobolka horta Faafan aad iyo aad buu maartay bilahaan gaar ahaan magaalada caasimada u dhismatay laakiin markii dhagax buur laga tago ayuu saasi lagu fiican tahay mustaqbalkeeda u fiican tahay qabdi dahar sidaas la eg runaantii anu waxaan tagay laba gobol baan tagay saddex gobol baan tagay dhagax buur waxaan tagay 4 gobol Faafan iyo Jarar iyo Qorraxay iyo gobolka Doolo ayaan tagay runaantii markii loo fiiriyo saddexda gobol kale gobolka Doolo waxaan dhihi karaa dulmigii ayaa ragaadiyay waa meesha ugu badnaa oo dulmigu ku dhacay waa meel iska maartay xagarey ah oo badanaa jamaduhu iyo meelaha strategic ku ahayd marka meel waxay furun dagaal iska noqotay gobol dhismay ma aha gobol maartay sheegeen dadkiisina dhiseen ma aha dadkii gobol Soomaaliland degtay gobol waxa gobolada kale xoogaa marti ka jiro dad maartay Soomaaliland isku timaad in ka qurxinaato ka dhismo qurxinaatay ahayd laakiin ma noqon wadan lahayn iskuulada lahayn view lahayn waxa u jeeda yani
gobolkii doolo sidii ay kaga tagay buu laakiin gobolka isbedel ka muuqdo isbitaal male waa ilaa meesha u koraysa ilaa meesha u hooseysa hagaag marka bal caasimada deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga oo dabcan hadda lagu tiriyay markii Hargeysa iyo Garowe iyo Xamar iyo Cadaadad Kismaayo iyo magaalooyinka Baydhabo iyo markii la eegayo magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliyeed yaa lagu tiriyaa waliba xilliyadan dambe dhinaca korisda iyo ganacsiga iyo xagga dhaqaalaha si gaar ah ayaa loo tuumaa ama farta loogu fiiqaa magaaladaas soo xiliyadii dambe qurba joogto ay aad u tagayeen 2008 wixii ka dambeeyay dhinaca maamuladana dad badan oo qurba joogay dad badan aqoon-yahanna laga yaabaa inay hadda ku dhex darmadeen dadka dhinaca systemka iyo maamulka dawliga magaalada main roadka ama wadooyinka waaweyn ee gudba ee dhinaca iyo Harar iyo Baabul iyo xaggana aad dhinacana u soo baxa Qabr Bayax iyo magaalada ma leedahay wada main weyn oo magaalada dhex marta iyo wadooyin yar yar wax calaamado ah oo sheegaya xawaaraha baabuurka ku socon karayo magaalada Jigjiga gudaheeda marka socoto ma leedahay wadada may mid jid weyn way leedahay oo wadada kala qaybo mid kan ilaa iyo ka buurta Karmar aada iyo mid kala asayna gooyo oo meesha talasiid ku taalo gooyo way leeyihiin laakiin jidkii artiku waxa laga fikiraa 10 sano soo socda population si u korayo iyo baawarta wadada soo fuulayso intay leeyihiin lama fikirayo guriyihii hadda dabaqyada la dhisayo lama balan garanayo oo lama qorsheynayo maxaa jidkan soo noqon doonaa wadada intay la kaan doontaa jidku yar yahay guriyihina waa qarkii baa la saaray waxay noqonaysaa in la sameeyo hadda oo magaalada caasimadan cityga dhexdeeda inta laga guuro in maarta caasimad cusub la sameeyo master plan la sameeyo banaan loo guuro oo laga tago Jigjiga dhan oo la sameeyo master plan cusub loo sameeyo jidadka loo weerarto jidadka in loo soo dhawaado ma wax ka saadhici kara 50 sano lagu xisaabtamaa 30 sano soo socota lagu xisaabtamaa soo noqon doona jidkan marka waxa fiican in maarta marka hore horta loo sameeyo space oo jidka ku fido ma fidin hal sameeyo jidkiiba wal si shaxaadayba oo soo yaraaday dukaamadii iyo guryaha laga hor dhisayo ayaa ku sibatay marka wadada waxay noqotay overcrowd oo ciriiri bay dareemaysaa baawartu waxay noqonaysaa haddii trafficka derbiga fuulaha ka dego oo xagga mid ka ordo marka waxa weeyaan wadanka xogaa jidka ku xun laakiin ismaha sida kale waa bilicleeyahay sida magaalada Jigjiga markaad ka baxday ee aaday dhagax buur ilaa iyo Qabdahar ilaa Wardheer taban maada tagin guday iyo gobolada kale wadooyinka wadanka isku xira ee laamiga ee wadadan xawaaraha loogu socdo ah intay dhin niyo waa jidkan hal jid baa ka baxay sida wadanka aada jidkan dheer dhagax buur aada ilaa iyo kimna shalaabo ilaa guday aada kala leexda labada jid waa jidkaas waay laakiin hadda waxa halka u soo noqdo wadankiina jidka loo dhisay waa la siyaasadeeyay ma wana maadana siyaasadinta wadadaasaan rabaa marka hore gaariguna ku nabadgeli karo dadkiina ku nabadgeli karaan looma dhisin qaabkee loo dhisay jidkan aad aragto ilaa wadankeena soo galaba ilaa iyo ka soo Baabul markii soo gaaraba jidkaas waxa weeyaan qaab kale loo dhisay si waxa loo dhisay dawladdu markii dhisay dadku Ethiopia hadda si u fiirso waxa asdahaysa dalka u baahan tahay dadka uma baahna habka wuxuu sameynayso marka isaa u fikirtay dawladda company-ga dhisay qof walba oo wadada ku dhintay xaq waxa lagu leeyahay inay magdhow bixiyaan sababtoo waxa la wadankeena iyo siman oo ilaahay simay ayaa wadadii waxa la gaarsiiyay boor wala taagay kor loo dhisay inta kor loo dhisay yaa laamiga dusha ka saaray marka maxaa keenaya shirku maxaa keenaya gaarigu hadduu ka banjaro taayirka hadduu ka qarxo wadadu ka degaya waa adoo baaburka buur laga tuuray qofka inta saaran iyo baaburku waxaan isku noqonaya uu dhalaalaya isku dhalaalaya saddex gaari hadda isku timaado saddex gaari oo isku dhow hadda soo dhahay isbaasaan ma loo sameeynin wax la dhaho service line lama sameeynin hal mitir ama bad ama hal mitir ama hal mitir iyo bad oo dhinacna iyo hal mitir iyo dhinac oo dhinaca soo lagu tala galay labada gaari ee istaamaraya hadduu gaari ka saddex soo galo meesha inay kala durkaan lama sameeynin jidkii waa laba leen oo yar dhinac kalena waxa weey waa god وهذان لكن لا وجد waxa haduu laga yaabo gaari ku yimaado ka leexo waxa laga yaabaa inuu la waayo waxa dhacay markaas inuu gaarigu dhaco gadoomo inta soo jir isgadiyo oo baaba meesha dadku ku baabaan waxa inta dheer maxaa loo sameeyay jidkan jamada wadankeena ka jiray
jaamay markii ka jireen jidka waxaa loogu talagalay dadka heer guraaga horta sidii wadanka waxaa ilaaliya heer guraaga ilaaliya haddaan maqasho deegaan iyo wadan nimanka dadka heer guraaga ilaaliya dadka miyiga jooga ilaaliya maxay ku ilaaliyaan maanta intay degayaan maanta xaggaas degayaan bari xagga degayaan eegaa meesha wareega waxay Itoobiya u fikirtay jidka laamiga ah wixii dhinaca ka degana in xagga u gudbin ilan geedidan oo ratidan oo raran mi gudbi karaa laami burdu toos isarsa ariga bisa gudbi karaa haddii waliba xoog lagu gudbiyo waa inuu xagga u gudbaan inta xagga degna xagga deg joogta inta xagga joogta xagga joogto hatta jaamidi ka dagaalamay xoog ugu talgalay in haddii wax awr iyo wax u reeyeen in xagga waxooda loo gudbi hab siyaasadaysan baa jidka lagu dhisay oo loo dhisay marka maxaa la sameeyay wadankeeni buurtu waa la dhisay laamiga la dhisay waa la taagay laami waa la saaray laamiga la saaray waxaa dhacday marka inuu qof gaari kasta oo meesha soo maro oo wada oo qaada speed ku socda in uu wada wax hadduu khaldamo inuu gaariga dadka saaro uu baabao waa hagaag wadada waxaa sheegtay in kor loo dhisay laamina la dul saaray tayada wadadaasi ay leedahay ma u korgashay waa tayadna ay leedahay soo markay roobabku da'aan ama biyo wadanku meel waxa jirta dalku buura ka yahay oo biyo rog leeyahay sidaba adduunkan waxaa jirta wada laamiga marka kabeen u dhisayo in uu ka bixiyo wax la dhaho inta dhisnaanaysa wadadan guarantee inuu bixiyo ama qofka dhisaya inuu yahay qof wadani ah oo deegaankii iyo laxjaalay dhulkii dadkiisa laxjaal ka hayso wax tayeysan oo bari uu ku heli doono shaqo kale iyo kontaragyo kale uu ku heli karo inuu wadada ku dhiso dadka dhisaya waa maxaa iga galay badana kaminidu wadada la dhisayo hadaa aragto roob baa da'aya roobku markuu da'o biyuhu way soo rogmadaan biyuhu marka sabab jahay u socdaan laamigu biyuhu ma liqaan soo laamigan haddii aan la jahaynin biyahan haddaan loogu talagalay hab loo samaynin waxay sameynayaan way soconayaan laamiga qarka jabsanayaan marka dambe biyahaas ka leexanay meesha ka gudanayaan wuu jeexayaa laamigi baa dilaacaya baawarkii waa soo maray wuu sii jabinayaa hadhow waxaa noqonaysaa wadadii inay kala go'do oo biyihii meel goostaan marka waxaa la rabaa in loo sameeyo wadada girgir yar oo biyo ku socdaan waxaa loo sameyn karaa shamiitada wadankeena loo baahan tuma soo go'do switch wadada ka soo yara baxa oo biyaha wadada laamiga ku soo dhaca xagga biyuhu intay ka leexiyaan intay shabaga loo sameeyo filter loo sameeyo intay ka degaan meeshii u socdaan loo gudbiyo laamiga ay ka dhex baxaan oo meel kale tagaan oo ama laag aadaan ama jidka caadi ah wada biyo sii qaadaan looma sameynayo waxa weeyaan waa shamiitadii way halkii laamigii baa la saarayaa sidii baa looga tagayaa biyaha meel jabsanaya hadhow wadada baa laga yaraa kala godaba tusaale ahaan haddaan ku siiyo waxaan arkay gobolka qorraxay waxaan maleynaa waa meesha ku taala dhismihii sayidka guriyihii ku sugtay markii xoogaa banka qorraxay dhexdeeda waay meel waxaa jirta geedkan qoolaha la dhahana aad ugu baxay jeerinka aad baa ugu baxay meeshaas ma arki karti gaadhiga soo socda adigu xawaara ku socotaa wadadu way go'an tahay biyaa gooyi laamiga wax yar buu u baahan yahay oo intii la hagaajiyo si fiican loo geedaha laga jaro la hagaajiyo nimanka hadda madaxda ee dawladda haysa ayaga ku baaba'ay bari kama waxa qolay wasiir hebel baa shil galay oo ku dhintay sababta hadii iska hagaajin maalin walba sii maraan maalin walba soo maraa gudoomiyaha sii maraa qof walba sii maraa shacabka kasoo wadiya gooyi wax biya gooyi biya waxa la rabaa in la hagaajiyo loo sameeyo meel ay biyuhu ka leexdaan oo ay ka degaan laamigana waxa loo baahan yahay marka uu qofku dhisayo oo hay'ad u dhisayso inay u samayso gaabkii girgirida dhinaca laamiga waa inay shamiitaysaa daamirka la saar laamiga ma waa inay shamiitaysaa biyahaas ee laamiga ku dhacaya in loo jaheeyo meesha ay ka bixi lahaayeen iyo meesha laamiga uga degi lahaayeen 100 mitir oo kale markay socdaanba 100 mitir ba waa in la sameeyo meel filter ah oo biyuhu ka baxaan oo shabag ah oo laamigana 100 sano tirada 100 sano duubay waxba soo gaarin in la fujiyo oo ku kala saar mooyaane maletaas marka waxa weeyaan waxaan dhilaa dawladda deegaanka wadankeena waa la siyaasad waanu iman doonaa dawladda deegaanka wax hagaag daawadayaal meeshaad weli nagala socotaani waa Naba TV iyo barnaamijkeena aynu ku eegaynay dhibaatooyinka wadooyinka ka dhaca ee dawladda deegaanka Soomaalida
isu soo noqod wanaagsan iyo barnaamijkeennii cabdi taajir waxaa dhaca dhibaatooyin mar walba oo wadada ka dhaca oo shilal ah oo mar walba aan ka aragnaa saxaafadda iyadoo ay dad fara badan dhinteen baabuurtuna ay si u burburaan mararka qaarkood caqligaaga uusan keeni karin marka ugu horeysa inta badan baabuurtu ma ayagaa iskood iyo wadahayba iskood wadada uga baxa ama taayir ha ku dhaco ama xoolaha ku dhaco maadaama deegaanku yahay meelaha aadka u xoolaha badan mise baabuurta ayagaa isku dhaca oo wadada yar shilka maxaa ugu weyn oo keena shilka waxaa keenay saan kuu sheegay horta laba waxyaalood baa u badiba laba waxyaalood baa u degdeg badan laba waxyaabood baa ugu badan wax shilka keena waa mid xawaaraha gaariga limit ma la gaaro waa qabaal waa la gruusel waa wiil aan la dhihin baawarka saa u wad laysanka soo qaata la tababarin jidka board ugu oolin traffic uuna filayn uuna kusoo baxaynin waxaa la rabaa jidka meelo dhexe inay traffic iska joogaan oo boordo loogu dhajiyo gaariga inuu 80 ka badan ku socon karin meelaha golgoladaha 60 ka badan ku socon karin meeshan jidku fiican yahay la dhaho 100 ka badan kuma socon karti xawaaraha gaariga in mar walba la socdo deegaankana loo sameeyo xawaara gaari oo limit ah ma 100 buu ku socon karaa ma 220 ku socon karaa ma 100 laakiin xawaaraha gaariga in marka sabal caddo oo la dhaho gaariga ka badan intaas ganaax mutaysanaya gaariga intaas ka badiyana luusigiisu darawal ku luminayaaba adoon jeel ku gelinba dadka waxa weeye sharciga bara waxa weeyaan sharciga hadii la baro way baranayaan darawlintu waxa weeye sharciga ka adag laakiin deegaanka hadii sharciga ninka wasiirka gaadiidka haduu xoog saaro inuu dadka iyo darawlinta iyo jidadka iyo wax walba isugu amaankooda dadka way u badbaadayaan laakiin waxa dadka waxa ka sii daran taas oo intaas markay tahay xawaaraha gaariga laga soo tago saan ku sheegay dadku ugu guura laakiinse dhulku ma guuro dadku way dhashaan laakiin dhulku ma dhasho dadkeena iyo dalkeena waxa loo baahan yahay dadka wasiirada iyo dawladda deegaanka inay ka shaqeeyaan dalkooda si ugu mitid lahaayeen khaladaadkan ka saar markaan ku dhameystiro ka soo qaad airportka madaxtooyada iyo airportka waxay u dhaxayaan oo dhaxaysa tijiga magaalada caasimadda oo waxa u jiraan haddaad fiiriso waa garoonka waa airportka dhanaa intuu jir weeyaan wadada kama degi karti حتى هذا باورك بترصد على الميلا يستخدمه وأنا ودي جويسة هل كان بركو ودي جويو قارياش الصوص عضو والغاية بيني أما تلفون كه الله يانا مسك هذا سكوري ما دام كلار كوي وسكوب بعضيان هدوكو جويس بحنا ودودك دقيقة تدنا مكوب بدبادية قارن ما بدبادية قرونك هذا ودود صار إيربورك إتشيا وأبسل وخلط وتخلط صار قد بيلون سي واحد سمي وخلط ورسكي حتى هدي له انت وذكر الله ورسيه وإلا دعتك الصعود فوري كبدل كما سعون كرتان هدي شكل سو دغتي فوري كبدل وضع لما سعون كرو وحاوي بور بلقي وبور وحاوي بور وضع بور اوكي دول كان إلهي وحنا سمي دول إلهي وحنا سمي دول سمن هذا ولي تبي بدح مرته هذا صباح دك تكتو هذا إلهي شو ما سعود إلهي جونر سعود ما أركسي هل شد أو كرلو تاعي واسميه أدوك أنا فير وسميه إلا كانوا حاجة نادر دول إلهي وحنا نسيه السمن عن هذا لهين أو قد لهين أو بور لهين دول إلهي السمن نسيه واحد تادر أنت كرت تاجي وحيد كم سوق بين إنكم المرصدان بيا قاضية وخلط وليه لا يملكوا بالبيوت أو مرت وحاجة بيون قادم وضد مركي وضد قد كلا وضد القضاء وضد القضاء جد خاص أنت لو تاجي خاص كسوق قادم يا حال ربا إلا يصدق لكم إن مارت للنبو أما أفر لكم إلا النبو إلى عيد حنا سي نتشرب السي إذا أوفي على إذا نقول النبو واللي بس كل جيسة يا هاي سنة إلا النبو شيء النبو عيد النبو نجح ما شفته نجح إلا صار معه نجح وحاول وصفق إياه وأنا قرور حلقه نبا يعيد اسكو نبا مرة كبعدي أيام وحاول لا يمكن يصير لوكي أو سمن أو حتى قالوا ميل يسايكره حتى هذا طاير كبش هذا وضع كبحه وميل لا يسايكر بنا يسكي يسايكره أو وكل حنكره إنه سمي لكن وضع بور هذي اللي جيو وهجد تذكر بابا يعني وهجد وقت إنه هذا إلى لنا مركا أين نمانو dhinaca waxaa tiraahday laba arrimood baa sabab u ah waa jidkii oo isku dhow korna u dhisan khatartiisu badan tahay iyo xawaarihii oo aad u fara badan haddaba marka waxyaabo badan baad sheegtay oo xal noqon kara adiga aragtidaada sida wadada iyo waxay tahay maanta maxaa ugu dhow oo aad odhan lahayd xukuumaddu ha ku tallaabsato
si shirarka loo yareeyo ama loogaga hortago xukuumaddu horta haddii tabarteeda la hayo dowladda deegaan hadda waa wadan dagaal ka soo kabanaya muddo badan dagaal ku jiray madaxweynuhu ku cusub yahay waxa deegaanka dhan baa iska wada cusub waa wadan soo kabanaya waay hadda project cusub iyo dhaqaale aan laami weyn ku saaro laakiinse waa qasab in wadada la bedelo wadooyinka la bedelo waxa keli ah oo rabaa dowladdu inaan kula tali lahaa kabanigii dhisay wadadan wadada kabanigii dhisay wadooyinka waaweynka kabanigii dhisay in magdhow la weydiisto sharci la tigsado maxkamadda la saaro inay sharci ahayn wadooyinkan la dhisay qof walba oo shilka ku dhinta ama ku soo gaarina in magdhow laga qaado laysankina oo la lumiyo waa mid hadda gacanta kula jira ee wadooyinka hadda wadada dhisaya in aan loo ogolaanin inuu wadada inuu kor u qaadin inuu simo dhulka ma isleedahay cabdi jir wadada oo kor loo dhiso iyo iyada oo laga dhigo siman ama flat way ka qarash yar tahay maadaama waxyaabo fara badan la gelinay marka kor loo dhisayo soddon injiil oo kale kor loo qaadayo sababta waan ku sheegay inay ka qarash yaraan waan ku sheegay waa hore ku sheegay walaal cabdiraxmaan waa la siyaasadeeyay waan ku iri meeshan wada lama dhisin wada siyaasadeed baa la dhisay tii hore cabdi jir la siyaasadeeyay tan dambe miyaa weli la siyaasadeynaya wadooyinka hadda dambe ee laamiga hadda la dhisay horta oo in badan TV-ga marmar laga soo daayo anu ma arag laakiin wixii aan soo arko ma rabaa inaan ka sheekeeyo wixii dhisnaa marka hore dhisnaa 2018 ka hor wixii dhisay baan ugu qaarkay laakiin wixii gadaal laga dhisay hatta chayga hadda wadada soo socday xaggan iyo baalka u soo socda waa la taagay laakiin sida kuwa kale loo taagay uma taagna uu ka yar yahay laakiin kaas anigoo gaariga saaran anigoo gaariga saaran oo soo socona jijka soo socda yaa taa naga banjaray taayir baa naga qarxay ilaahay baa na badbaadiyay muxuu ilaahay nagu badbaadiyay meesha aan maraynay meesha aan jidka aan jeega haysanay horta aad uma dheereen wax yar baan ku siganay in maartay in gaari noola gadoomo inkastoo isla markii yarka xawaaraha ku socdayna wuu yaraa ilaa iyo ku socday deetan ku socday meelaas xawaarihiisu iska sheekaysan taayir baa naga qarxay marka hadda fiiriso magaalooyinka hadda fiiri marka tuulooyinka dhex mariso magaalo waxa arkaysaa magaalo ku soo aadaysaa ama magaalo markuu soo maad laamigi cirkaas jooga hadda laamigi qofkii guriga halkaas dhinaca ka tashaa goosha hadaad tagto jidka laamiga mar oo dhan cirkaas laamigu jooga qoyska halkaa degan iyo qoyska halka joogo qof waayeel uma soo wareegi karo dhalinyaro mooyaane ma soo goyn karaanba waa buur habeenkii qof indhala hadduu dhaho laamiga goynayaa wuu ku faya wuu jabayaaba inta buurta inta la gaarsiiyey waa magaalo laamiga waxaa waa in la gaabiyaa waaye waa in dhulka la dhisrigaa waaye marka dowladda deegaanku waxay u baahan tahay kow in laga shaqeyso sidii speedka baabuurta loo dhiman lahaa intii wadadu tahay oo loo yara lahaa speedka oo loo dhijila calaamada xawaaraha dhin ah xawaaraha meel walba boor loogu dhajiyo dadkii akhriyaan wixii bartaan interwalinta la baro in la kontrolo baabuurtan speed ku socota meel aynan filaynin inuu traffic kaga soo baxo gaari iska ordaya xawaaro aad ugu ordaya in maarta isha la qaban karo in maarta leasingkiisa laga dhigo baabuurkaas ninkaas leasingka degdeg ugu soo noqonin sababta intuu dad kala afan lahaa asoo leasingkiisa loo sugreeyaa yaa u dhaanta ama lumiyo leasingkiisa yaa u dhaanta yaa noo dhaantay intuu dad naga lumiyo dadkeena loo mooyaan maaha dadka waa dad u baahannahay marka waxaa loo baahan yahay dowladda xawaaraha gaariga inay dhinto in la dhimo baabuurta la dhimo waa sharciga dhinaca wadada weeyaan ama airport ha ka yimaado ama magaalada ha dhex socdo ama jidka ha aado xawaaraha waa qasab in la dhimo waaye magaalada wadanka deegaanka la dhimo waxa kaloo ugu muhiimsan in jidkii laga howlgalo wixii dhisay in dacwo lala tigsado maxkamad lala tigsado يعني dadkii horay ugu dhintay dowladda loo baahay inay hawlgasho inay dacwo laga geeyo inay dhahay jidkana loo dhisay dowladda wax maartay suurtagal ma aha jid la siyaasadeeyay oo loogu talagalay heer guraaga inuu xaggan u guurin ama jabad xag u guurin oo aan maartay ugu tago dad lagu baabiyo oo loo dhisay laakiin wax hadda dowladda deegaanka gacanta ku hayso jid loo dhisayo wasiirka gaadiidka iyo jidadka waxaan farayn lahaa inuuna u ogolaanin in waliba mar labaad iyo saddex jeer ku noqdo
jid buur ahoo dambe in la dhisin wadanka ila maartay jid kor u taagna wuuna ka dhaqso badan yahay intaas ciid ku qorayaan tabiix bay saarayaan jay bay gurayaan way dhisayaan cirkaas geenayaan kan laakiin hadii falaad laga dhawo ka dhaqso badan yahay dhulka hoos laga soo qodi waxaan loo baahan yahay laami kastoo la dhisayo in loo sameeyo meel kasta biyuhu ku wajahayihiin biyuhu way soo socdaan dhinac u socdaan biyaha laamiga raba in la gooyaan waa in la lahjiheeyo وصح هوري بدو sharaxday in maartay loo sameeyo meelaha biyaha ka bixi lahaayeen xaafadaha ee ku soo haray ugu dambeyntii marka inaga oo barnaamijka gabagabadiisii guulaan iska joogna maxaad fari lahayd shacbiga iyagu raaca baabuurta gaadiidka ee xawaaraha aragtay ku socda darawaliinta wada ee iyagu marka ugu horeysa shil ku dhacay qofka inuu dhinto koow ka yahay laga yaabo inuu noqdo ina xukuumadii waad la hadashay bal fariinta aad faraysa maxay tahay shacbiga iyagu raaca baabuurtaas gaadiidkaas ganacsi yihiin iyo kuwa caadiga ee isu tagaya ama isu gooshaya iyo darawaliinta fariintan farayo walaaladay nimanka baabuurta wada qof walba oo darawal ah oo muuqaalkan uu soo gaaro qof walba oo deegaanka u dhashay oo gaari raacaya wadooyinkaana ku safraya waxaan dhihi lahaa haddaa aragtay gaarigaas xawaaro ku socdo inayna maartay iskala hadashaan oo walaal speedka yaree xawaaraha gaariga yaree waad ku badbaadaysaan isagu badbaadi gaariga badbaadi si nabada meesha ku gaarisan sababta waxa weeyaan asoo xawaaro ku socda yaa laga yaabaa inuu soo dhaho gaari uu arki baas gaariga si socod baas dhinac ka baas dhinac ka dhaaf dhinac u dhaaf kuwa ka hor imanaya marka waa in wadada baabakan ku dhaw labada kaas haduu wadada ka gooyana oo dhamaatay kan haduu wadada ka gooyana oo dhamaatay waa buur bay ka dhaceen laba dadkii iyo wixii saar Allah ku rusho weeyaan wax yar haduu wax yar maarta hurdo yar haday qabato oo in yar lulmoodo oo indhaas ku qabto oo wadada ka dego gaarigaas Allah ku rusho dadku way baabaayaan gaarigi marka waxa loo baahan yahay darawaliinta walaaladeen waxa loo baahan yahay gaariyaasha in xawaaraha dhintaan gaariga 80 ka badan ha ku wadina wada ma haysana laakiin laami waa haysana waa tagaysan laamigaas aad ku socotaan 80 hadda ku socotaan waa safe siba dhaantaa inta 120 ku socon ilaa 140 ku socon adoo 80 ku socdo baawarka aad qaban karto meel ka qaban karto ina gaadho hadda adoo 100 ku socdo aad break qabana asay control miska diiya sama intuu gaarigu soo qaboobi karaa 120 mitir meelahaas yaa laga yaabaa markuu 80 ku joogo inuu soo qaboobo haduu 100 ilaa 100 ku socdana kaba si daranba inuu soo qaboobo marka xawaaraha gaariga saad meel saad dadkaaga u badbaadiso ana isku badbaadiso gaariga u badbaadiso adiga laftiga walaalka shalay ku dhintay shil saaxiibka waa ku dhintay waxa loo baahan yahay inuu aqligu shaqeeyo oo aad dadkiina iyo dalkiina aad u badbaadisaan gaariyaashana wadaan qabaaladan aad wada erinaysaan dadka mas'uuliyiinta ah ee u wadaan oo dhan inkuna is badbaadiye eegana badbaadiye wadamo haysano wadada la siyaasiyeeyay baa la noo dhisay waxa loo baahan wadada la siyaasiyeeyay la noo dhisay inayna u maleyn inaan laami haysano laami ma haysano buur baan haysanaa hadii aad hatta firi laami waa la yareeyay waa la shaxaaday waxa loo baahan laamiga galwada gaari ee saas ku daba maraya waa inay haystaan 1 mitir iyo 60 oo dhinacaas oo mitirba gaarigan haduu taayir ka banjar bari meel ku banjar karo oo istaay karo taayirkiga bedelan karo laabigiina uu maartay isla baawrta mari karaan male wixii baa la yareeyay waa la shaxaaday intii la yareeyay iyo lahayn meel uu baawrku haduu taayir ku banjar laabigu goynaya laan yar baa banaananaya waxa laga yaabaa geedkan oo meelaha qaar kood geedka qulaha ay aad ugu batay yaa laga yaabaa gaariga inuu laamigu jiiro jido oo ka qariyo gaariga ka koonsan baa imaanaya gaarigu soo boodaya qaboojis dhahaawna waxa break qabtana isbiil ku socday wadadu ka dagaya marka walaal waxaan leeyahay gaariyaashina shacabka deegaanka hadii ninka gaar saaran u sheeg darawalka aad gaariga kugu wada inuu xawaaraha yareeyo maalin kasta aragtaan shil gaarigu ku bato wali bari hadda way soo barteen way soo batay sidii hore ka sii dareen waxa loo baahan yahay in aad iyo aad isku kontrolshaan aad iskala hadashaan darawaliinta oo dhan baawarta xawaaraha yareeya oo aad u yareeya oo dawladda sharciga ku soo rogto in baawartan in xawaaraha la yareeyo oo waliba jidadka dhan boor lagu dhajiyo magaalada boor lagu dhajiyo meel walba lagu dhajiyo ama Sidi Cabdiraxmaan aad baad u maasan tahay kaasi wuxuu ahaa Cabditaajir Maxamed oo ay maanta martiin ugu ah xafiiska Nabad TV ee magaalada Melbourne ee dalka Australia barnaamijkan oo aynu kaga hadlaynay dhibaatooyinka iyo shilalka ka dhaca wadooyinka dawlad deegaanka Soomaalida iyadoo 7-6 sano waliba 3 sano ugu dambeysay ay dad fara badan ay ku dhinteen inagoo og in baabuurta deegaanku ay yihiin baabuur
lagu soo helo si aad u adag hanti badanina ku baxdo si dhib yarna ku burburo isla markaana dad fara badani ay ku dhintaan cabditaajir ayaa barnaamijka marti inoogu halka kala socotaana waa Nabad TV cabditaajir aad iyo aad baad u mahadsantahay aad baan mudan Cabdiraxmaan daawadayaal intaynu ku kulmi doona barnaamijka mid la mid ah waanigu Cabdiraxmaan iyo guud ahaanba bahda Pacifica ee Nabad TV oo idin leh sida iyo nabadgelyo intumayay ku joogsaday xareeduna dhex jiifto joof bixiyay dooguna tiyo u buuxuu jaray jigjigo barwaaqo intumayay ku joogsaday xareeduna dhex jiifto joof bixiyay dooguna tiyo u buuxuu jaray ruuxii ku jaleexa kama jasanaye jigjigay jigay dhibaatiyo allo kaajir balaayada ruuxii ku jaleexa kama jasanaye jigjigay dhibaatiyo allo kaajir balaayada dadkiyan jeclaa iyo xaruntaanu jeel qabiyo jigjigadii qurxoonayd u jiboobay aniguye joogii waayay beled kale dadkiyan jeclaa iyo xaruntaanu jeel qabiyo jigjigadii